السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوسو دوادا يوتيوب channel كينا K9 Code. مقال كينا maanta waxaan ku soo qaadan doonaa binary. Binary muxuu yahay? Siduu u shaqeeyaa? Computeradeenuna maxay ugu baahan yihiin inay isticmaalaan binary oo aysan ugu shaqeyn nambarada caadiga ah ee decimalka. Marka koowaad soo dhawow like saar muuqaalkeena videogeena si share garay oo la wadaaga asxaabtaada channelkana subscribe leh oo ku soo biir bahda K9 Code. haddaynu hore u galno muuqaalkeena kooban ee ka hadlaya binary sida aan wada ogsoonahay computer systemsku ama computeradu waxa ay ku shaqeeyaan oo ay fahmeen kaliya binary marka aynu ka hadlayno waa tiro ka kooban laba digit oo ah hal iyo eber. Binary digit oo loo soo gaabiyay bit ayaa waxay ka turjumaysaa in uu binary digit yahay marka uu hal bit yahay waa 0 ama waa hal. Computerku caadi ahaan waxa uu fahmaa luqadda binary ee ka kooban number 1 iyo number 0 ama hal iyo eber. qofka bini'aadanka ah ama dadka caadiga ah ma fahmayaan luqadda computerkuna ma fahmayo luqadda dadka. Sidaa darteed waxa jira computerka inuu qaato luqadda binary-ga application iyo systemo isku kala turjuma oo converting u sameeyana waa ay jiraan. Marka waxaad isweydiin kartaa qaabkee ay u shaqeeyaan binary digitsku ama binary-gu waxa uu ka kooban yahay kaliya laba xaaladood oo ah on iyo off. tusaale haddaynu ka soo qaadano laambada caadiga ah ama leerka waa la shidaa ama waa la dimiyaa. labada xaaladood oo kale ay ka kooban tahay binary digitku. haddaa isweydiinaysid sidee ayuu u qaadan waayay ama why ama maxay u qaadan waayay computerku tiradeena caadiga ah inuu wax ku calculate gareyno ku xisaabtano nolosheena caadiga ah ee decimalka ama nambarada eber ilaa 9 ah ee ka kooban 10ka digit. waa simple haddii ay bitsku kordhaan ama computerku wuxuu leeyahay laba xaaladood waana on iyo off kaliya. sababtaas ayaa keenaysa in laba bit kaliya uu isticmaalo laakiin haddii 10ka number ee kale uu isticmaalo waxay noqonaysaa in computerku 10 xaaladood isticmaalo. 10 xaaladoodna computerku ma laho wuxuu leeyahay kaliya on iyo off. marka aynu ka hadlayno faylasheena iyo informationkeena computerku wuxuu faylasheena ka aasaasaa bits isku tagay kuwaas oo marka ka dambeeya si kordha. marka uu bit yahay waa hal number ama waa hal ama waa eber. marka uu byte noqdona waa 8 mid oo noqon kara ama 4 halaad ama 4 eberaad. tiro 8 oo ka kooban hal iyo eber waxay kor u sii socdaan marba inta faylka uu ka kooban yahay iyada oo ku xiran tahay tiradani marba mid ayaa ku sii darsanta marba qayb ayaa ku sii kordha oo waxay gaaraan heerar ah bit byte megabytes ilaa iyo wixii ka badan iyaga oo ku xiran faylashaadu intii ka kooban yihiin. haddii video aad haysato resolutionkiisu high yahay ama uu sareeyo waxay ka dhigan tahay inaad isticmaalayso millions of bytes ama bits. waxaa kaloo uu binary-gu marka aynu joogno uu informationkeena ka aasaasana waa kaliya bitska labada ah. muuqaalkan haddaad ka heshay like saar la wadaag oo share garay asxaabtaada kuna soo bir channelkeena K9 Code. inta muuqaalka xiga iskaga hor imanayno ama isugu imanayno waxaan idinkaga tagayaa. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.